Bismillahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada ardayda Somali Civil Engineers. Run ahaantii janaalkan waxaan iska dambeysay waqti aad iyo aad u fara badan oo ku dhow muddo almost 8 bilood ilaa 9 bilood. Marka waxaan dib u bilaabeynaa insha Allah casharadeenii maadaama aan zaid u kala mashquulnay. Arday badana dhowr mar ay ila soo xiriirayeen oo idhahayeen Sar waxaan u baahanaa casharadii waxaan noo wad waasan. Marka aniga naftigeygana aad aan u mashquulay marka wadankii ayaan hadda joogaa. Run ahaantiina ma la isku keeni karo sidii hore ma ahan oo kale marka waagii aan Sudeeshii joogay oo aan free u ahaa. Marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa hadba inta aan ka gaarno inaan macnaha aan samayn doono casharada. Marka insha Allah ardayda inta ugu badan waxay doonayaan iska jabka balse aniga wax walbo oo civil engineering ka maadooyin kala duwan structuralka, RCC-da, steel structure-ka oo ayaamahan ugu kacsan yahay environmental-ka insha Allah casharo badan ayaan kasoo samayn doonaa. Janaalka insha Allah waan kala kici doonaa marka insha Allah aan isla soconno arday. Maanta marka waxaan sameynaynaa sketchup cashir sketchup marka plan yar. Intaanan balaanka u gudo gelin waxaan ka sameynaa cashir sketchup-ka macnaha 2 cashir oo hore ayaan ka sameynay. 2daas cashirna aad iyo aad ayay muhiim u yihiin. Haddii aadan 2daas cashir aadan daawanin because maanta ma sharxeyno hore ayaan ka sameynaynaa. 2daas cashir ayaan kusoo sharaxnaa lineskii sida wax walba loo sameynayo. Marka insha Allah waxaan isla joogno project-gana wuxuu noqon doonaa project tartiib aad u fahmi doontaan insha Allah. Marka hore ayaan usoo sheegnay sketchup-ka markii aad 2D-ga aad joogtay iyo 3D-ga waxaad aadaysaa qaybtan mar walbo. Marka qaybtan ayaan wax ku sameynaa. Waxaan qaadanaynaa plan ah last project plan aan sameeyay jiro. Plankaas wuxuu ahaa 11 oo extra oo lagu dhuftay 20. Planka waa kana. Marka anaga hadda waxaan sameynaynaa 2D. Marka 2D markaa sameynayso kan waa 3D oo ujeedin. Marka 2D waad sameynayso waa inaad halkaas joogtaa. Sidoo kalena aad tiraahdaa shaashada ila AKC oo aad zoom in soo dhahdaa. Zoom extent ayaa lahaa baalkan. Marka shaashada ayuu kuu soo dhaweynayna. Hadda waxaan qaadanaa balaankeenii oo intaa 20 oo lagu dhuftay 11. So marka waxaan samayn doonaa waxaan ka bixin doonaa offset. Kedi offset-ka exterior-ka iyo interior-ka uu kala yahay. Exterior-ka Soomaalida waxay isticmaashaa 0.4 ayaa la isticmaalaa oo 40 centimeter gudaha ayaa u soo gelaysaa. Waxaan sameynay hadeertaan waxaan qaadanay 20 oo lagu dhuftay 11 Excel-keena oo offset-keena oo ah 0.4. So marka hadda waxaan u guda gelaynaa inaan design gareyno qolalkeeni iyo sidii ay noqon lahayn. Baalkan waxaa la yiraahdaa measure tool. Marka faa'iidada uu leeyahay waad arki doontaan. Dhankan 4 mitir ayaan u soo baxayaa. Halkan waxaan u soo baxayaa 4 mitir. Waxaan sameynayaa qol. Meeshan ayaan qol ka rabaa waad ila arki doontaan. So marka offset waxaan interior-ka ay ku jirnaa 0.2 weeye. 0.2. So marka waxaan qaadanaynaa rectangle-kan. Rectangle-kan waa isticmaali kartaa. Sidoo kalena waxaa isticmaali kartaa qalinkan waa isticmaali kartaa. So marka hawsha noo fududaato waxaan isticmaalaynaa rectangle-kan. Okay.
marka grid lineski ama guideski waa iska tiraynaa. Ujeediin hadda waxaan sameynay waxaan bixinay qol ah 4 lagu dhiftay 4 mitir ah. Inta waa ka jaraynaa, intana waan ka jaraynaa. Sababta aan ugu jarayno gadaal ayaan idinkaaga sheegi doonaa. Sababtoo ah hadhow marka aan joogno 3D-ga markaan joogno aan rabno inaan guriga kicino oo buul iyo bushkan aan ku kicinayno, waa ujeediin hal mar ayuu wada kacaya. Laakiin haddii uu meeshaas uu ka xiran yahay macnaha ma wada kacayo. That's why aan macnaha aan u sameynaynaa inaan xariiqmaha jarjarno si ujeeda calaamada highlights-ka oo wada saarmayo hal mar guriga dhan. Okay, marka haddeertaan aan wada boobsiino 4 mitirka qol kale aan ku xijinaynaa. Okay, grid lineska intana waxay ii soo qabataa qolkan waxaa dhexdaa 4 mitir. Point 2 inta ka arkaysaa macnaha waxaan sameynaa point 2 markaa qorto intana point 2 halkaasna waxaa ku jiro qol kale. Insha Allah SketchUp-ka wuxuu ka mid yahay sidaan hore idinkugu sharxay software-rada aad iyo aadka u fudud oo aan ahayn CAD-ka. Marka aad iyo aad u fudud yahay. Waxaan sameynaynaa marka waxaan isku furaynaa tana project-gan waa project aan ugu dambeeyay aan sameynay. Marka isla asiga ayaan qaadanaynaa. Waxaan qaadanaa 4 mitir. Okay, dheh point 2 kale dheh. Aad iyo aad u fudud yahay ujeediin. Ma u baahnid inaad macnaha energy iyo waqti fara badan siduu adiga software-rada CAD-ka u adeeg oo kale uma adka. Offset aan qaadanaa. Aad u fudud yahay. Marka waxaan rajeynayaa ardayda insha Allah WhatsApp-kayga ayaan idinku soo qori doonaa. Ujeedaan qalad yar aan galay marka kastirtaan wax sharxay. Control Z la dhehe wax weyn maaha. Qolkan xitaa waa qaldan yahay. Waxaa la rabaa inuu ku tooso halkan ku tooso. Cabirkan qolka meeqa waaye 4 mitir waaye. Soo kan meeqa waaye point 2 waaye. Kanaan raacinaa even xitaa uma baahnid guideska iga dheh guideska waa ugu fara bateen. Hadda soo qaad marka inta waxaan kasoo qabanaynaa 4 mitir. Ujeedaa inuu la ekaado point 2. Okay, qolkaana waa inaan meeshan qolal waaweyn aan sameynaynaa 4 mitir. That's why aan okay haddana caadi aan usii raacsan karnaa qol kale. Hadhow hal mar aan sameynaynaa oo 4 mitir. Meeshaana dukaan yar aan ka dhigi karnaa uu yahay. Okay, hadda marka aan wada sameynay qolalkii si noqon lahayn wada bixinay. Okay, easy way ujeedaa. aad u fudud xitaa si loogu laabto aad u fududaa. Marka qolalkii wixii waa bixinay xariiqmaha waa iska tiraynaa halkaas edit-ka ayaa tegey delete guides iska leedahay. Meeqa qol aan sameeyay waxaan sameeyay 1
2 3 4 intan waxaa galaya hal qol meeshan baranda ayay noqone jiko intay noqone luuq yar intuu noqonaa musqul intaa ugu sameynayna haddaan rabno qolkaana musqul kalena waa u samey karnaa qolkan waxaan u maleynayaa inuu ahaa 5 mitir inuu ahaa 5 mitir 1 2 qolka musqul aa gelis master bedroom so marka intan wuxuu ka ahay 4 mitir 4 mitir oo ka ah muuska iskaga haystaa so marka waxaan sameyneynaa dib aan u seexeynaa ujeedaa intaanan seexin ka hor waxaan tusayaa waxaan iska tirtirno okay xariiqintan sababtan kale xiraan ujeedaa hadii kale waxay isqaadanaya meesha dhan ay qaadanaya tusaa inaan ujeedaa maxaa maqan wax badanaa maqan so marka waxay saameynaysaa meeshaas xariiqintan aan ka xirayna hadeertaan iyaga lee tirtirmaa marka see kan xitaa uma baahna waxaa raacay gridlinekeenii oo 40 mitir ah intaa uga baxday pointi 2geenii inta ahay so marka rectangle soo qaado hada qolkan waa qol weyn sameynay guideskan ay tirtir soo qabo inta isku fur sababta iskugu fureyno waan ii sheegnay waxaa la rabaa qolka dhan isku fura ardayda waxaan nii soo qori doonaa whatsapp numberkeyga haddii aad u baahan tihiin koorsada insha allah ila soo xiriira iyadoo dhammaystiran waa hayaa waa nii soo dirayaa insha allah gmailkeygana waan idiin sheegi doonaa ila soo xiriira marka hadda meeshaani waxaan gelinaynaa qol kale oo 4 mitir ah qolkaas kale 4 mitirka dee aad aa u fahanteen iska jabka run ahaantii aad iyo aad iyo aad u fudud yahay doosaskaa noqdo masuwaaliis bacdaas dhan ha gelin waxaa sameynaya halkan gal oo ah top ujeedaa zoom extent aad waa ujeedaa simple waa kadib ujeedaa saas muu adkaa falaartaas waa ku dhufanaya dan waa kusoo laabanaya sorry falaartaas ku dhufanaya meelaa taabanaya meel banaanka strong suunka waaye anaa waxaa qaadanaya skeelka rectangle-ka rectangle-ka rabay marka waxaan qaatay okay ujeedaa something is wrong waxayaa qaldan maanan qaadin offsetkii oo interiorkii derbiga dhexe point 2 ahaa balkan macnaha asaaba isku aftirinayo aa qaldan tahay haddaa saxan tahay oo kuu sheegaya iska xir maanta waxaan sameyneynaa xariiqmahan iyo okay hadda waxaan sameynay qolalkii intoo qol ah 1 2 3 4 5 okay barandadii waa tanaa iyadana
projectigan ilaa iyo 3-4 cashir insha Allah inaan ku sameyno waan umaleynaa. So barandadan waxaa ka dhigtaa 4 mitir ka dhig. Okay, soo laabo 3 mitir iyo bar because ama 3 mitir xitaa iska dheh. Inta waxaa la rabaa barandada 1, 2 inay meeshaan imaataa la rabaa. Meeshaan barandada 8.2 8.2 كده cabirka. Okay, intana 0.2 iska dheh. xariiqinta waxay naga raacday grid line-keena naga raacday oo ah 8.2. Okay, 0.2 qaado. Marka hadda baranda yar oo dheer waa haysaa. Sketchup-ka waxyaabaha uu sameynayo waxyaabo aad iyo aad ardayda u anfacayso. Marka haddii aad sketchup-ka barato oo wixii lagu qurxinayana aad barato, run ahaantii for example waxaa lagu qurxiyaa software-rada V-Ray-ga ama Lumion-ka aad iyo aad ma ugu bahnaanaysid. Ujeedaa horta hore meeshan hadda saaro geeskan dhan highlight-ka uu saarmo ujeedaa, laakiin kan dhexe ma saarmayo wax barandada la sameyn. Sababtana waa garanaysaa. Waxaa loo baahan yahay inaan isku furno. Hadhow waxaa la rabaa guriga markii la kicinayo 3D-ga inuu waxba ka harin oo wada kaco. So marka hadda waxaan sameynay laamiskii macnaha gurigii soo noqon lahay. Waxaa noogu xigi doono albaabadii sida looga bixinayo. Albaabadii waxaas ayaan ka bixi doonaa. Dimension-kii iyo cabirkii si loo saari lahaa 2D-gii. Marka hadda dimension-kii marka waxaan ku guda jirnaa hadda 2D-gii ayaan ku guda jirnaa. Intana musqul ayaan u sameyn doonaa. Gurigana wuxuu lahaanaa baakin ganjeelkiisa intuu noqonaa. Sidoo kale meeshaan waxaa waaye dukaan irid banaan iyo irid dhaxal leh. Dukaanka cabirkiisa waxaa noogu soo hartay 2.4 intana 4 mitir oo ka yahay. Very nice luuqaana 1 mitir inuu ahaa 8.8 okay very nice waaye. Gurigan inta wadaa ka saaran wadadiisa halkaan ayay ka baxaysaa. Inta afkaan hore wada ayaa marayso. Inta guryaha ka dhisan intana guryaha ka dhisan intana wuxuu guri kale ka gadaaleeyo. So marka wuxuu leeyahay 1 mitir oo meeshaan luuqan. That's why albaabkan yarka oo u samaysteen cidda gadaalna waa kasoo galaan. Intana albaab kale ku leeyahay. Inta laga soo galaa inta saan loo soo galaa. Albaab yariis waaye hadda ugu talagaleen. Intana ganjeelkii weynaa waaye. Marka waxaan sameynaynaa insha Allah albaabadaas waxaas ayaan sameyn doonaa. Guriga project Tawfiiq laga dhisay xaafadda Yaaqshiid. Marka baakinkan uu leeyahay sidoo kale meelahan waa barxad weyn saa ka arkaysaan 2.8 mitir waaye. Marka insha Allah next lesson cashirkeena labaad oo projectigan ah waxaan sameyn doonaa intaa ka tegay waxaan sameyn doonaa sidii albaabadii 2D-ga loo sameyn lahaa
sidii dimensionka loo saari lahaa. Then guriga ayaan kicin doonaa oo 3D-ga ayaan cashirkiisa saddexaadba inaan aadno samayn doonaa insha Allah. Marka nala socda WhatsApp-kaygana shaashada ayuu ku qoran yahay. Waa kaasaa idiin muuqda. Marka waad igala soo xiriiri kartaan insha Allah. WhatsApp-yadii hore halkaas waa kasoo guuray Bangladesh. Marka ma isticmaalo hadda. Marka kan ayaan isticmaalaa. insha Allah kulanti wacan.